dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug ayaa maanta cafis u fidiyay afar badmax oo u dhashay dalka Yemen kuwaas oo maxkamadda sare ee Galmudug 8 Febraayo ee sanadkan ku xukuntay ganax lacageed oo gaarayay $60,000 kadib markii ciidamada ilaalada xeebaha Galmudug ay soo qabteen iyagoo si sharci darro uga kalluumaysanaya xeebaha degmada Hobyo ee gobolka Mudug. taliya ku-xigeenka ciidanka booliiska dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug Korneyl Cabdi Jaamac Cabdulla Xabeeb ayaana warbaahinta qaranka u akhriyay warqadda cafiska loogu fidiyay afarta badmax oo magacyadoodu kala ahaayeen Nabil Ali Maxamed, Rabiic Kuleyb Maxamed, Fuad Ali Maxamed, Najiib Yaxya Zaim. saaka taariikhdu tahay kowdii bishii saddexaad 2017 waxaan saakay diyaaradda saaraynaa afarta ruux oo ahaa ragii Yemen ah oo kalluumaysato ahaa oo laga soo qabtay xeebta badda Hobyo si sharci darrana markii hore ku soo galay runtii lana soo qabtay oo lagu xukumay $60,000 taariikhda markay ay 8 bishii 2017 nimankaas kadib markii ay soo codsatay safaaradda Yemen in la cafiyo nimankaas oo dawladda goboleedka Galmudug ay u cafiyaan afartaas muxuu ahaayay maxbuus ee Galmudug waa ay qaadatay kadib markii warqadaasi ay soo gaadhay wasaaradda cadaaladda ee loo geeyay madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Galmudug haddana ah kusinaha madaxweynaha waxa cafis loo fidiyay buuxa xornimadoodina dib loogu soo celiyay afarta nin ee Yemenka ee meesha farfadhiya oo magacyadoodu hoos ku qoran yihiin laga bilaabo saakay oo taariikhdu ay tahay kowdii bishii saddexaad 2017 waxay saaraynaa diyaaradda waxaana la geynayaa xamar waxay ka degi doonaan garoonka muxuu ahaayay Muqdisho ee aadan cadde waxaana lagu wareejin doonaa safaaradda u joogta meesha Yemen u joogta ee Soomaaliya cafiskuna wuxuu ka soo baxay dowlad goboleedka Galmudug muxuu ahaayay wasaaradda cadaaladda kadibna madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug baa cafiska soo saxiixay waa ujeedaan saxiixiisi Maxamed Cabdi Xaashi ayaa soo cafiyay sidaas daraadeed waxaan u sheegaynaa adduunka in nimankaasi cafis yihiin dalkoodina si xor ah ku tagi doonaan Galmudugna si xor ah uga bixi doonaan. Salaamu calaykum cid kasta oo ay warqadaas qusaysana waxaan codsanaynaa inay taxgeliso cafiskan loo fidiyay afartan badmax ayaa yimid kadib dadaalo dheer oo ay u galeen safiirada Soomaaliya iyo Yemen u kala fadhiya labada dal. Cabdirasaaq Maxamed Axmed, warbaahinta qaranka Soomaaliya, Gaalkacyo.